madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaga kormeer ku tagay xarunta loogu talagalay in lagu tartansiiyo geel ugu caanaha badan Somaliland waxaana arintaasi geeleyda ka caawiya xukuumadda Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo qabtay tartankan si loo helo caqabadaha keena caana yaraanta geela wadanka waxaana maalmaha soo socda lagu dhawaaqi doonaa miisaanka ugu badan ee laga lisay labada waqti ee galabtii iyo subaxii iyadoo isla goobtaasi lagu miisaamayo caanaha laga lisay hal kasta oo halkaasi ku sugan waxaana loo kuurgeli doonaa wixii looga gudbi lahaa arintaasi si loo helo korukac miisaanka caanaha laga lisay geela Somaliland ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha geeleyda Somaliland Mustafa Cali Ducaale waxaana hadaladiisi kamid ahaa qoladayda geela meesha keentay fursad weyn iyo farxad weyn bay noo tahay madaxweynuhu inuu halkan nagu soo siyaarto waxay daba socotaa boqoshadii hore ee madaxweynuhu qolada geeleyda u yimi waa dhiirigelin qiimo weyn u leh ummadda Somaliland in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geel ahaa in maanta marxaladii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii waxay iman doontaa in caanaha marka fariinteena ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaado inaynu caano leenahay waxa iman doona kambaniyada daba socdo caanaha doonaya marka diyaar garow weyn ba halka ku jira madaxweynaha waxaan uga mahad celinaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay nasiib uu leeyahay oo fardihiina waxay hirgaleen xilligiisii geelina xilligiisii marka anagu xagga dhaqanka siyaasadda kama hadalaynaa xagga dhaqanka waxa weeyaan wax weyn baa hirgalay insha Allah ta'ala madaxweynaha ku bogaadinayna waana ugu ducaynaynaa inuu dhiirigelintaas qolada Imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyay iyaguna waa mahadsan yihiin waa adduunka waxa la isdheeriyay inagu xoolihi baynu haysanaa laakiin tiknoolajiyadii iyo cilmigii kale in ay laynagu biiriyo oo cidii wax inoo keenaysa aynu ka faa'iideysano waa muhiim waxaan filayaa musaabaqadan ama maharajaankan ama shirabaadan mar labaadka ku xiga bisha 9aad in geel badan iman doono adduun intan ka badan ka soo qayb gali doono marka aynu muujin doono record weyn oo ah geeleen inuu noqdo geel adduunka ugu horeeya maadaama geeli ugu badnaa aynu leenahay marka madaxweynaha aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa oo kugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana uu yiri waxaan ka hor mahadnaqayaa qolada geela dhaqda ragga geela dhaqa ee hawsha badan ka gaadhay ee kaligood mashruuca dhaqaalaha u baahan xoogga u baahan waqtiga u baahan geliyay ee waliba badankoodu reer magaalkaas Mustafa Kariyo ee u jeedsaday intay ka baxeen shaqooyinkii maxaa qadisneen digital shaqada digital engineer ka baxay geela u bareeray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa anigu imika kumaan iman si dawladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo kamid ah geeleyda marka imika galabta waxa u xidhay marka tartanka hawsha waxa la wasiirka xanaanada xoolaha marka wasaaradda wada doonta si rasmi ah hawshan laakiin maadaama aan waxoogay anigu halaan leeyahay sida Mustafa geel badan mari marka maadaama aan ku jira geeleyda waxaan anoo geeleya tartanka kamaan qayb galin waan soo diyaar garoobayaa waan ka yar baqday markaan arkay nimanka geelasha badan iyo geel waaweyn la wato marka waan soo alamitinay ciyaarkada waan soo alamatay doona marka soo alamatay aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa Imaaraadka dawladda Imaaraadka inagoo xiriiro badan leh waxay noo keeneen anigu waan la yaabay maalintii hore wiiraan geel baan tursan caaniga hal shirabo oo la kala iibsan ma arki jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay haasho caanaha u yareysay caafimaadkeeda cuntada cuntayba madabeecad kala haysa haduu geelo caaniri waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisa la bedelayaa marka inaga hashi maanta dhexaadka waxa maraysa 3 kiilo maalintii oo 3 jeer la sheegay laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa 8 marka waxa in waajib inuu gaarsiin hadii awrkaanu bedelayno hadii caafimaadka la korinayo hadii cuntada la korinayo waxay baanta si cilmi ah in de xoolo waa manaafacaad in laga faa'iideysto inagu ma fuuliga oo ka baqana iyaga hasha iyo 12 bilood maraysa la raraya oo reerku la saaro socota oo iyadoo shan jira hadaba waa qaalintii awrka iska dhaaf annagana oday halkan geelo dhex joogay iyo markaan qaalin fuluna u leeyahay maalintii goor jiray war maxaa geelo fulaysa hadaba adoo kabalo oo baqtiyay marka waa dhaqo badan u baahan in la bedelo marka waa mashruuc aad iyo aad wanaagsan qolada geelada oo ka hambalyeynaya Imaaraadka waa mahadnaqaya iyaga waan wadaan barnaamij oo xoojinayna geelana xidiisa aan kala inta waan badina waan sida qurayno leh u fiirsay adduunyada qaar baa dimitirsan siiya oo de mashruuc weyn oo adduunka laga daawado hadda qaar dhig iska daadanayo oo maracas la hor qaaday qaar baa riya ku tirsan laba orgi ay maanta iska raacayeen la daawada inaga xoolaha xayawaanka ugu wanaagsanaa labadii ugu wanaagsanaa gamaan iyo geel
labadii ugu fiicnaa inagoo leh oo hiddo u lahayn oo naqaanana waynu dayacnay markaa mashruucan carruurtii u barayaa dhallinyarada ku indhabaraqsanaysa wuxuu yahay bay garanayaan aad iyo aad baan hambaliyana wasalaamu calaykum abubakar farxaan cabdi abubakar abka wararka Raya TV